subax wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garooba idaacadeena subaxnimo inaad ka daawataan channelkeena YouTube-ka ee sirta wararka. waa subaxnimo talaadaha taariikhdan waxay ku beegan tahay 16 Agoosto sanadka 2022. idaacadeena saakeena qodobada aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo dib xalay ugu soo celiyay darajadii ciidanimo oo farmaajo ka xayuubiyay General Saadiq Cumar Xasan Saadiq John. haddaba maxay micno ay u leedahay Saadiq John in mar kale darajadiisa loo soo celiyo? maxaa ka jira in Saadiq John loo wado in loo magacaabo taliyaha booliiska gobolka Banaadir xilli aan 2 toddobaad ka hor aan baahino xogta ah in General Saadiq John darajadiisa dib loogu soo celin doono loona magacaabi doono taliyaha booliiska gobolka Banaadir? haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa 4 arrin oo loo sababeynayo dib u soo celinta darajada madaxweyne Xasan oo General Saadiq John darajadiisa ciidanimo dib ugu soo celiyay iyo 4 qodob oo arrintaas xaqiiqooyin ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo qoorqoor iyo lafta garan iyo waliba sidoo kale madaxweyne Xasan ayay kaga hormareen hambaliyada William Ruto kooxdii nabadii nolol oo isxijisay guusha William Ruto iyo sababta ay si daba joog ah ay u taageereen kooxdii nabadii nolol uu hogaaminayo Farmaajo qoorqoor iyo lafta garan oo William Ruto taageeray. macluumaad ku saabsan sababta ay u taageereen iyo sababta kooxda nabadii nolol ay isku xijinayeen guusha William Ruto iyo waxa ay ka dhigan tahay ayaan eegaynaa saaxiibayaal. madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ugu horeeyay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ayaa siyaabo kala duwan kaga hadlay natiijada doorashadii Kenya iyo guuleysiga William Ruto xilli aan ogaanay in madaxweyne Xasan Sheekh uu taageersanaa Raila Odinga oo ay saaxiibtinimo kala dhaxaysa kaasoo rabay inuu ku guuleysto doorashada Kenya. haddaba waxaan eegaynaa sida Villa Soomaaliya kaga falcelisay iyo sida ay u aragtay natiijada William Ruto in Kenya uu hogaamiyo. warbixinadana kale saaxiibayaal waxaa qayb ka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo xalay soo saaray 14 guddi oo baarlamaanka ka kooban xilli oo xoogeysanayo doodaha la xiriira mooshin baarlamaanka laga abaabulayo. warbixin arrintaasi ku saabsan ayaa qayb ka saaxiibayaal. waxa kale oo saaxiibayaal warkeena subax saaka aad ku daawan doontaan rabshada iyo xalay ka dhacay qaybo ka mid ah dalkaas Kenya kadib markii lagu dhawaaqay doorashada madaxtinimo ee Kenya iyo waa kuma William Ruto maxaase laga yaqaanaa ninkan mowqifyadiisa siyaasadeed iyo waliba mowqifka siyaasadeed ee Soomaaliya uu ka aaminsan yahay wax walba oo ku saabsan taariikhda William Ruto uu ku faahfaahin doonaa. qodobadani kuba kale ayaa warkeena subaxnimo aad ku daawan doontaan. qayb ka noqo daawadayaasheena sida maalinlaha ugu xiray channelkeena oo subscribe inoo dhig gambaleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan warbixinada gaarka halkan aan ku baahino. soo dhawaada mar kale subax wanaagsan aan ku bilaabo. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa General Saadiq Cumar Xasan Saadiq John dib ugu soo celiyay darajadiisa ciidanimo uu ka xayuubiyay Farmaajo bartamihii sanadkii hore aan ka soo gudubnay. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xeer madaxweyne dib ugu soo celiyay Sariya Guute Saadiq Cumar Xasan oo dhammaan darajooyinkiisa iyo xuquuqdii ciidanimo ee uu ku lahaa ciidanka booliiska Farmaajo ka xayuubiyay. Sariya Guute Saadiq Cumar Xasan Saadiq John ayaa dhammaan darajooyinkii xuquuqdii ciidan uu ku lahaa booliiska Soomaaliyeed si waafaqsan qodobka 87 iyo waliba qodobka 9 ee dastuurka ku meel gaarka uu Farmaajo waqtigaasi isticmaalay. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka duulaya sharciga dhismaha ciidanka booliiska ee lambar 2 oo soo baxay sanadkii 1973 ayuu tilmaamayaa muhiimadda uu u leeyahay General Saadiq Cumar Xasan booliiska. muhiimadda ay leedahay in booliiska Soomaaliyeed ay saldhig u noqdaan hanaanka dimuqraadiyad iyo ilaalinta sharciga dalka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya. qoraalku waxa intaas ku daray in Saadiq Cumar Xasan Saadiq John laga bilaabo maanta oo aan saxiixay xeerkan madaxweyne wuxuu xaq u leeyahay dhammaan xuquuqda ciidanka uu sharciga u ogolaa iyadoo xeerkan uu baabiyay xeerarkii hore ee asaga xuquuqdiisa lagu dusiyay ayaa lagu yiri qoraalka. xeerkan madaxweynaha ayaa dhigaya in laga bilaabo shalay oo 15 Agoosto 2022 oo markuu saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda in mar kale dib loogu soo celiyay darajada ciidanimo General Saadiq Cumar Xasan Saadiq John ee ku dhex lahaa booliiska. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo ayaa Saadiq Cumar Xasan Saadiq John ka xayuubiyay darajooyinkii iyo dhammaan xuquuqda ciidan kadib markii uu Saadiq John uu diiday falsafadii Farmaajo uu rabay ahaa in uu muddo kororsi isticmaalo sanadkii 2021. Saadiq oo markaasi ka soo horjeestay kadibna ku biiray mucaaradkii waqtigaasi jiray oo mucaaradku taageero xoog leh ka helay. go'aankii Saadiq John ee waqtigaas uu qaatay ayaa ugu dambeyn hadda ku guuleystay laguna awaal mariyay mar kale in uu darajooyinkiisa ciidanimo dib loogu soo celiyo.
madaxweyne xasan ayaa u muuqda inuu ka dhabeeyay ballanqaadyadii ahaa in dib ugu soo celin doono darajada xeerka madaxweynaha ayaana dhaqan galay shalay oo Isniina 15 Agoosto haddaba 2 toddobaad ka hor ayaan baahinay suurtagal ahaanshaha in General Saadaq Cumar Xasan loo magacaabo taliyaha booliiska gobolka Banaadir xogo qaas oo helaya channelkeena sirta wararka ayaa xaqiijinaya in General Saadaq Cumar Xasan uu ku jiro saraakiisha madaxweynaha Soomaaliya oo ka fikirayo inuu rabo in taliyaha booliiska gobolka Banaadir loo magacaabo Saadaq ayaa qaybka dadka miiska saaran hadalhayntoodu aad u xoogan tahay ee suurtagalka in xilka xildhibaannimo ka soo tago uuna ka doorto taliyaha booliiska gobolka Banaadir kaasoo madaxweyne Xasan u ballan qaaday in isla dhameysan doonaan dhinaca kalena farmaajo qoorqoor iyo lafta garan ayaa u muuqda inay isxijiyeen guushii William Ruto ayagoo xitaa madaxweyne Xasan Sheekh kaga soo hormaray hambaliyada markii lagu dhawaaqay natiijada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo madaxweynaha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Cabdicasiis lafta garan iyo Galmudug Axmed Cabdi Kaari qoorqoor ayaa ka mid noqday Soomaalidii ugu horeysay ee hambaliyo u diray madaxweynaha la doortay Kenya William Ruto farmaajo qoorqoor ayaa daqiiqado gudahooda fariimaha hambaliyaha u diray William Ruto intay socotay khudbadii uu jeedinayay xarunta doorashooyinka magaalada Nairobi waxaana xigay Cabdicasiis lafta garan isla markiina asna soo saaray qoraal William Ruto ku muujinayo farmaajo baraha bulshada haystay madaxweynaha Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo saddexdaba ka soo hormaray madaxweynaha talada haya madaxweyne Xasan Sheekh waxaana la sheegay in kooxdii nabadii nolol oo wali iswadata ay isxijinayaan guusha William Ruto in ayagu taageersanayeen xilli ay soo baxeen in dowladda Soomaaliya ay rabtay ayna taageersanayd inuu soo baxo Raila Odinga laakiin lagu guuleysto doorashada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waqti dambe asna hambaliyo saacado ama 2 saac kadib soo saaray markii la xaqiijiyay doorashada waxaana la yaab noqotay in taageerayaasha farmaajo kooxdii nabadii nolol ay si dardar leh ay William Ruto isku xijiyeen xilli dowladda Soomaaliya ay waqtigaas aysan wax hambaliyaha soo saarin dadka qaar ayaa ku doodaya ciwaanada madaxda maamul goboleedyada sida Galmudug iyo Koonfur Galbeed in wali ay gacanta ku hayaan taageerayaasha farmaajo garan agaasimihii hore ee Fahad Yaasiin kuwaas oo durba bogogooda qoraaladan ku soo daabacaya aysan madaxda xitaa xogogaal u ahayn wax lagu daabacay beejajkooda halka kuba kale ayaa ku dooday aragti kale oo daciif ah oo xaqiijinaya in kooxda nabadii nolol ay door weyn ku lahaayeen guusha William Ruto ayna taageersaneen ayagoo ka soo jeeda Raila Odinga iyo waliba Uhuru Kenyatta oo isla socday halka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh la sheegay inuu taageersanaa Uhuru Kenyatta oo William Ruto Raila Odinga inuu taageersanaa inuu soo baxo haddaba dhinaca kale aan eego waa kuma William Ruto maxay tahay mowqifkiisa siyaasadeed ee Soomaaliya ku wajahan ninkan iyo sida uu la macaamilayo dowladda Soomaaliya mar haddii la sheegay madaxweyne Xasan iyo dowladda Soomaaliya ay la jireen Raila Odinga guddiga doorashada iyo xuduudaha ee Kenya ayaa ku dhawaaqay William Samoei Ruto inuu ku guuleysto doorashada madaxweynaha Kenya wuxuuna helay 50% codadkii la tiriyay waana halka ku-xigeenkii halka ninkii la tartamay Raila Odinga walay 48% gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa sheegay in William Ruto uu yahay madaxweynaha cusub ee la doortay Ruto oo guushiisa kadib sheegay in dhammaanba awoodda madaxtinimada ay tahay wax shacabka Kenya asagoo ku aamineen isla markaana uu la shaqeyn doono haddaba waa kuma William Ruto maxaa ka naqaanaa sanadkii 1966 ayuu ku dhashay deegaanka Lirasuga oo ka tirsan gobolka Rift ee dalkaasi Kenya Ruto wuxuu ku soo koray nolol aad u adag xitaa wuxuu iskuulka aadi jiray asagoo kabala ama cagacad oo wax xitaa dacas ma qaadan jirin markuu jiray da'da 15 sano oo iskuulku dhigin jiray wuxuu ahaa nin wadooyinka seexda mararka qaarna iska jiifta darjiimanka maadaama qoys sabool ah oo faqriga uu ka soo jeeday Ruto wuxuu hal mar isbedelay noloshiisa markay sare u soo kacday da'da 30 markuu gaaray wuxuu siyaasadda Kenya ku soo biiray sanadkii 1992 wuxuuna ahaa macallin siyaasadeed oo u ahaa madaxweynihii hore ee Kenya Mwai Kibaki Ruto wuxuu xubin firfircoon ka ahaa garabkii dhalinyarada ee xisbiga madaxweyne Uhuru Kenyatta wuxuu sidoo kale ahaa dadkii loo xil saaray ololaha dib loogu dooranayay Kenya Uhuru Kenyatta waa nin furfuran awood leh siyaasadda Kenya si tartiib ugu soo dhaxmilmay markuu sanadku 1990 shahaadada koowaad ee culuumta sayniska ayuu ka qaatay jaamacadda Nairobi oo ah jaamacadda labaad ugu weyn
isla masterka ayuuna qaatay 97 sanadkii 1997 waxaa loo doortay xildhibaan ka mid ah baarlamaanka Kenya waxaana laga soo doortay gobolka Eldoret xilligaas oo halkaas ka soo ololeeyay Ruto wuxuu durbadiina u gudbay jagada madaxweyne ku-xigeenka sanadkii markuu ahaa 2013 toban sano oo xiriir ayuu ahaa madaxweyne ku-xigeen Ruto wuxuu ka mid ahaa aasaasiyaashii hortagay maxkamadda dambiyada caalamiga ICC kadib markii lagu eedeeyay inuu huriyay rabshado ka dhacay dalkaas Kenya sanadkii 2007 oo ay ku dhinteen 1200 oo qof Ruto waxa lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa dacdiyadii dambiyada dhacay asagoo hortagay maxkamadda dambiyada adduunka ee ICC loo soo gaabiyay ugu dambeyn dambiga lagu waayay Mr. Ruto wuxuu taageeraa dadka qaxootiga iyo dadka nolosha adag ku jira William Ruto sanadkii 2016 ayuu ugu baaqay beesha caalamka inay taageerto go'aankii Kenya ay ku doonaysay in albaabada isugu dhufto xiriyaha qaxootiga Dadaab ee dad badan oo Soomaaliyeed ay ku jiraan Ruto xilligaas oo ka hadlayay shirka arrimaha bini'aadanimada ee ka dhacay Turkiga ayaa codsaday in beesha caalamka ay gacan ka siiso Kenya sidii loo laabi lahaa ama loo xiri lahaa dhammaan xiriyaha qaxootiga ee Soomaaliyeed ee degan Dadaab ku yaala dowladda Kenya ayaa sanadkii hore si rasmi ah u gudbisay hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga UNHCR inay xiri doonto dhammaan qaxootiga xiriyaha qaxootiga Dadaab ee Kakuma wixii ka dambeeyay 30 June sanadka 2022 inkastoo wali dhicin Ruto waxa uu yahay nin inta badan aad u neceb siyaasadda Soomaaliya Ruto waxa hadda lagu tiriyaa inuu yahay nin si weyn u soo horjeeda siyaasadda Geeska Afrika sida uu wajahay madaxweynaha Kenya ciidamo badan oo Kenya ah oo ka howlgala Soomaaliya kuna howlgala magaca nabad ilaalinta ayuu xitaa olole ku galay inuu dib u soo celin doono waraysigu BBC 2019 wuxuu sheegay in Kenya ka shaqeyn doonto sidii loo xoojin lahaa amnigeeda iyo waliba kan Soomaaliya inkastoo uu yiri haddii uu madaxweyne noqdo uusan jeclaan lahayn ciidamo Kenya inay sii jeegaan Soomaaliya Ruto waxa lagu tiriyaa nin aaminsan siyaasadda gobolka oo dhan laakiin haddana wuxuu ka soo horjeedaa hanaanka ay wada shaqeyso dowladda Soomaaliya haddaba lama oga mustaqbalka nooca wada shaqeyn ee dhaxmari karta dowladda federaalka Soomaaliya iyo William Ruto oo hadda Kenya qabsaday waagaag taariikhdii dheeraad ee William Ruto iyo waliba sooyaalkiisa ayaan halkaas ku soo koobayna saaxiibayaal warbixinadana kale ee warkeena ka haray ayaan u gudbaynaa markan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa magacaabay 14 guddi oo baarlamaanka ah gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa xalay magacaabay liiska 14 guddi iyo magacyadooda xildhibaanada ah oo ka mid noqonaya guddiyada golaha shacabka sidoo kale qoraal ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha ayaa habdhooraha guud ee xogayaha golaha shacabka lagu faray in ay howlgalaan oo ay qabtaan doorashada guddiyadan oo ay ku dooranayaan gudoomiye 14 guddi oo golaha shacabka ayaa kala ah kow guddiga miisaaniyadda maaliyadda qorsheynta iskaashiga caalamiga iyo la xisaabtanka hay'adaha dawladda laba guddiga xeer hoosaadka daryeelka iyo anshaxa iyo xasaanadda saddex guddiga horumarinta adeega bulshada afar guddiga difaaca qaranka shan guddiga kheyraadka dabiiciga iyo beecada lix guddiga arrimaha gudaha maamul goboleedyada iyo amniga toddoba guddiga xaqiiqi raadinta dib u heshiisiinta iyo hanti isku soo celinta sideed guddiga beeraha horumarinta reer miyiga xoolaha kheyraadka badda sagaal guddiga dhaqaalaha ganacsiga iyo warshadaha 10 guddiga garsoorka oo qaafta arrimaha diinta 11 guddiga warfaafinta wacyigelinta dhaqanka boostada iyo isgaarsiinta 12 guddiga xaquuqul insaanka haweenka iyo arrimaha bini'aadanimada 14 guddiga arrimaha dibadda 13 halka 14 ay tahay guddiga wadooyinka dekedaha garoomada tamarta iyo gaadiidka guddigan ayaa mid walba wuxuu ka kooban yahay inta u dhaxaysa 15 ilaa 20 xildhibaan waxaana loo gudbi doonaa sida la faray xogayaha iyo habdhooraha in toddobaadyada soo socda ay guddigan iska dhex doortaan gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen oo guddigani maamula waagaaga saaxiibayaal warbixinadan ayaan kusoo koobaynaa warkeena subaxa saake aad ka daawanaysan channelkeena YouTube-ka ee sirta wararka saaxiibayaal qodobadan ayaa ugu waaweyn qodobadan wixii kale kusoo kordha wararkeena kale ee galabnimo ayaan ku faahfaahin doonaa nabadgelyo